wadooyinkii uu dhisay sidoo kalena elbool uu dhisay adiya si fiican marka aragto quruxda dad saas leeynta u wada galay dad iska soo horjeeda oo kala urur siyaasadeed ah oo kala diime ah oo kala qabiilo ah oo wax oo kala kalar ah wax isu galay aan la arkin Kenya kale waa 42 qowmiyadood hatta qabiilo ma haya 42 qowmiyadood oo mid walba luqadeeda gooni u leeyahay oo Soomaalidu kamid tahay si fiican dadkaasi iyagoo kala qowmiyadaha leen inta wada galaan ay qof walba qofka raba codka ugu ridaya waaya aniga waxaan ula baxay nabadoonka siyaasadeed waa gartay shalayna farmaajo ku joogay nabadoon ah oo waa kii dhexdhexaadin haatana waa nabadoono waa tii nabada uu ku baaqay si fiican abwaan baraka soo dhaw adiyad wadho walaashay galmudug waa soo hadash wali waa soo dhawaaqday waa gartay madaxweyne ku xigeenkii wuxuu yiri doorasho diyaar u nahay qof iyo cod aadayna war culus waay sida xanta socotay waayahan qoor iyo galmudugba waxa la yiri waraaba aamusan waay balaa ila aamusan laakiin hadda waxa way isfurteen oo waxay yiraahdeen doorasho qof iyo cod diyaar u nahay arinta ka war aad u mahadsantahay horta waa war fiican waay dad badana waxay ka shaqeynayeen inay xasan iyo galmudug isku dhuftaan waay oo doorashada qof iyo codka galmudug ka hortimaado horta dadkaas hadalkaas soo yeeray dadka u raacay dadkii jecla ninkii balaayad doonayo barbarkaada ka qaado waay waxa kale oo meeshaas ayna ku jirta hadalka isaga ah in galmudug aysan ahayn dadka ballamaha ka baxa wixii ay saxiixday waxba naga yaalo waxa madaxweyne markuu hadlay xasheeq wuxuu yiri hebel saxiixankaaga marka uu faralaska ay noqotay saxiixyadii galmudug laga hayay marna kamaysan bixin warno dowladda dad ballan furaya jira way asla caadiga way eedeen waxa man dhihi karnaaba galmudug iyo madaxweynaheedaba waligood maysan ballan furin markii dawladda Soomaaliya taariikhda aniga inta garanay adiya maxaan qorqor intuu joogay farmaajana wala shaqeey way xasan wala shaqeey sida caadiga haddana wuxuu ba xubin ka yahay xisbigi JSB aniga waxaan ula baxay nabadoonka siyaasadeed waa gartay shalayna farmaajo ku joogay nabadoon ah oo waa kii dhexdhexaadin haatana waa nabadoono waa tii nabada uu ku baaqay si fiican halka markaan ka soo noqono madaxweyne ku xigeenka wuxuu ka dhawaajiyay inay wax qabad la imaadeen si fiican teamka kale raba doorashadana inay wax qabad la imaadaan oo ay soo tijaabiyaan si fiican halka ka warnaayadana horta waa aragti fiican sidaba dil yiraahdo Soomaaliya wax qabad ha lagu tartamo waa meesha kaliya Soomaaliya ku guuleysanay si fiican sababtoo aniga deegaan u dhashay deegaankayga ninka igu taliya haduu wax qabad ku tartamo deegaankii kor u soconaya si fiican maalin kasta mid kasta wuxuu ku daraya wax qabad hadii lagu tartamo leeyahay si fiican waa talaabo fiican wadooyinkii uu dhisay sidoo kalena elbool uu dhisay adiya baarlamaanka aqalkiisa waa asiga waa dhameystiran horta waxa la dhisay waxyaabo badan oo kamid madaxtooyada kamid ah baarlamaanka xaruntiisa kamid golaha wasiirada xafiis kasta wasaarad kasta xafiisya loo sameeyay adiya waxa kale oo la sameeyay jidadkii waa la dhisay dabcan waxa isleeyahay dad intaas loo dhisay oo airportkii loo dhisayo amni nabadgelidii la dhisayo galmudug oo maanta macno leh oo la isleeyahay xataa maamuladii 25 sano 26 sano soo jiray ayay maanta gad mudug illa afgambi kara ma ahan oo soo taagan yihiin adiya waa dad inta badan soo jeeda dadkii wax qabadkaas markay arkaan waxay ila tahay cidii waxaas u qabatayna doonaan adiya saasan rajayna waxa la dhahay in dayax 15 sacab lagu ma qari karo qorqor iyo teamkiisa iyo dawladda galmudugba waa wax iska cado banaanka iska yaala laakiin cid lagu loolami doono waa shacabka reer galmudug shacabka lagu loolami doono reer galmudug maxaa leedahay shacabka reer galmudug horta marka koobaad doorashada markii la gaaro fadqalalada iyo waa ay badan yihiin si fiican ko in amnigiina meel walba amnigay wax ku tahay واساس إن مجالوجين كأمن وذا لا إلاليو ولو رجل مذ وحياة أد وقال دناجر وحكم ده ولا ما إسقابنا يسمى مجالات أما لو راح دجال من قبض بح إن هي بيدا وقضي دانا ربا أو حوالي هذه حتى اللي إسقابته أينها أنا قد دجال تبرتين ما ها إن دانا ربا سبتوته هدين
hubaysan meesha soo galo dawladdiina hub haysato dagaal ugu dhacaya dhibaato ka dhalan aad iyo aad marka waxaan leenahay nabadgelyadana adinku ilaashanaya doorashooyin qori ma aha waa kuwii codkiina ku cilbaxa cidda rabtaan ku dhisa cidda aan rabina ha u codaynin golaha deegaanka galmudug ma ka bilowdeen golayaasha deegaanka dadku way isdiiwaan galiyeen waxaa isdiiwaan galiyay dhammaan marka laga reebo area yaro nimankaanu ka haystaan oo argixisada ka haystaan inta kale waa la iska diiwaan waxa uu noqon doonaa galmudug maamulka ugu cajiibsan ama ugu tirada badan oo xortay noqon doonaa lagana codeyn doona aad iyo aad bulshada waxaan leenahay anigu horta wadamo badan oo Afrika ha maray Tanzania Kenya Uganda South Sudan Ethiopia Soomaaliya ku dar wadamadaas oo dhamaan maray si fiican wadamadaas qaar kamid ah doorashooyinka si xor iyo xalaal ah uga dhaca oo nadiif ah marka aragto quruxda dad saas leeynta u wada galay dad iska soo horjeeda oo kala ururo siyaasadeed oo kala diime ah oo kala qabiilo ah oo kala kalar ah wax isu galay aan la arag Kenya kale waa 42 qowmiyadood hatta qabiilo maaya 42 qowmiyadood oo mid walba luqadeeda gooni u leeyahay oo Soomaalidu kamid ah si fiican dadkaasi iyagoo kala qowmiyadaha leen inta wada galaan ay qof walba qofka raba codka ugu ridayaan marka waxaan rabnaa inaad dadkaas ku dayataan si fiican qofkii awooda inuu dadka ka dhaadhacsado inuu cod ugu rido laakiin inuu saqajajac iyo hub iyo wixii laga soo tagay oo madaxweyne qorqor ka yiri galmudug isagoo markaas ula jeedo dadka galmudug qorigii yaambay ka tolatay marka yaambadii beeraha lagu falanayay qaata foodkana qaata hub dambe mamnuuc waaye abwaanaada uma santahay aduguna aad ma santahay